غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. إيمانكم محوك السيادة محاسن ناقصية ويوحين أكسون هاي قفك بني آدم كاهي نفتي سيئ مالكي سيئ الكيس وإيغا وشيقريا وحي كردمان بو اسكو دايانو دليل تيرو هدي قريقا قحوية أوري بيت قريا قفك قريقي سوحوية هدي قاديد كي سوحوية قيرشكو قيا هدي شركي سني داوعي هاي دختركو تغا ميانو باهنين intaba shaygii inooga muhiimsanaa ahaa raasamaalka kaliya oo iimaanka inaynu ogaano waxa qoomaya ama qardoofaya ee naaqusinaya iyo waxa dhamaystiraya ee qurxinaya ila waa raasamaalka kaliya inlaan awoodda insaanu helo adduunyadana waxa ugu culus ee ugu weyn waa iimaanka maaha hawkay dadku ku faanaan maaha dhaqaalaha awoodda ugu weyn waa iimaan ee Ilaahay uu siiya addoomaha subhanahu wa ta'ala waxaynu si kooban insha Allah ta'ala u durmari doonaa si ay noogu noqoto tawciyatan wa targhiban iyadoo nusuustu ayna jeclaysiinayso wacyigelin ay noogu noqoto waxyaabaha iimaanka kordhiya ee diinteena iyo daliilkeenu sheegay min alkitaabi wa sunnah si ay noogu dadaalno waxa cagsigooda ka soo horjeedana aynu uga dheeraano mid khudbada hore aynu ku soo sheegnay oo waxa weeye macrifatullah in ilaahay la barto subhanahu wa ta'ala iyadoo lagu baranayo asmaadiisa iyo sifooyinkiisa magacyadiisa iyo tilmaamihiisa ilaahay kitaabka quraanka uu ku sheegay nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa uu ku sheegay sida qul wallahu waa uu sharxayo ilaahay ciidiba cidda ay ka taqaano ayay uga cabsi badanta marka cabsida ilaahay badatana iimaankii baa korayo kobcaya illa waxa biyaha lagu waraabiyo waa cabsida alle sidaa darteed baa ilaahay uu inama yakhsha allaha min cibaadihi alulama cabsida dhabta ilaahay waxa ka cabsada culimadu ilaahay sheegay subhana marka waa ulama alaamilun biilmihim an-nafi' ilmigooda anfacaya culimada ku amal falawi ilmigu uqubu noqdo hadaan lagu amal falin adoomaha ilaahay u yaqaanay aqoonta ay tawxiidka u leeyihiin daraadeed ilaahay waxay siinayaan xaqiis waxay uga haybadaysanayaan haybadii u mudnaa waxa ay u caabudayaan cibaadadii u mudnaa mar wala ilaahay bariya mar wala ka fikirayaan awoodihiisa waxay ka akhriyaan sifaadkiisa iyo asmaadiisa saadarteed baa ilaahay waa maanay subhanahu wa ta'ala waxyaabaha uu ku kabco iimaanku waxa kamida talabul ilmi sharci cilmiga sharciga inay dadku bartaan hadaba sida aynu soo arkayno nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay man salaka tariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi tariiqan ila aljanna xadiidkii saxiixa ahaa muslim ku sugnaa qofku haddii uu wado maray isagoo cilmi raadinaya ilaahay wuxuu u sahlaa wadada u mari lahaa jannadana waxa galaya qof iimaankiisu weyn macnaheedu waxa weeye qofku markastuu cilmi kororsado cabsida ilaahay isaga ugu dhow waayo u yaqaana waxa kamida waxyaabaha iimaanka kordhiya at-ta'ammulu fi aayaati illaahi al-kawniyyati wa makhluuqaati inaynu akhrino caalamkanaynu ku noolahay cirkiisa dhulkiisa badaha xayawaanka nafteenna intaba awoodo ilaahay baa ka muuqanaya waa makhluuqaat iyo abuur tusinaya iyo sancooyin tusinaya saanica ilaahay siduu sanco wanaagsan yahay subhanahu wa ta'ala isheena quraankuna taad buu ugu jeedinaya haythu qaala allah inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab abuurka samooyinka iyo dhulka iyo habeenka iyo maalinka isweydaaranaya aayado ay wax ku qaataan oo iimaankooda kordhinaya ugu sugan aqoonyaanka wa fi anfusikum afala tubsirun naftiina miyeedaan eegayn buu lahayd miyeedaan arkaynin ma cibra iyo cashar uga faa'iideystaa si iimaanku u kordho qul induru maada fi as-samawati wal ard wama tughni al-ayatu wan-nudhuru an qawmin la yu'minun eega buu lahayd waxa samooyinka ku sugan waxa dhulka ku sugan laakiin maxay aayadaha ilaahay ka tarayaan
qaaraan iimaan lahayn macnaheedu aayaadka cidda ka faa'iidaysta iimaan bay kororsanaysa sidaa daraaddeed baa salafuna saalix siiba asaxaaba waxay odhan jireen ina diyaa'a aliimaani wa nuura aliimaani altafakkur fi alaayaati alkowniya inuu iimaankii qofku siraado oo iftiimo waxa u sababa isagoo akhriya xaashiyaha caalamka sida misxafkan aynu aayadaha uga akhriyaynu qur-aanku ina baraya xaashiyaha caalamkanna inaynu saa uga akhrino saa daraaddeed qofku inuu ahaado qof foorara oo maadadiisa iyo manaaficdiisa yarun indhihiisu ku koobayin maya aragtidiisu way dhaafsantahay halkaa lidaalik buu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam caalamkaa dhinac waloo eegaba cashar buu dadka ka siinaya iyadoo habeenkii cadda la fadhiyo ayuu cirka eegayaa dayaxuu eegaya dayaxaa miyaa ka shakisantihiin maya soo mid waliba ma arkaya haa sidaasaa ilaahay u arki doontaa subxaana wa tacaala qoraxdoo sii dhacaysuu asxaabigii abidar la hadlayaa wuxuu leeyay ma garanaysaa qoraxdaasi halkay tegayso allahu warasuulu aclam taxta alcarshi bay ku sujuudaysaa ilaahay wuxuu farayaa inay dib u soo bilowdo wareegeedii maalin baa iman doona dib loo celin doona oo qiyaamadu dhici doona waa duruus min alaayaati alkowniya uu nebigu ka baraya sida loo istidlaalaya calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a waxyaabaha iimaanka kordhiya qiraa'atu lqur'aani wa tadabburuh qalbigii qur-aanku way isleeyihiin qalbigan ilaahay wuxuu ugu talagalay markuu abuuray inuu qur-aanku waraabiyo marka qofku inaanu qur-aanka ilaahay bedow ka noqonin qur-aanka ilaahay inaanu ka qadin laakiin qur-aanka ilaahay intuu barto inuu akhriyo tafsiirkiisa barto dabeetana dhagaysto haddii la akhriyaya hadduu akhriyayaba ilaahay inuu addoonku afkartaa wax weyn weeye inaad adduunyo yar wixii lagu cuni lahaa iyo luuqadahayabay dadku ku dadaalaan see u baran lahaayeen inaad ilaahay afkarataabaa wax weyna oo isagaa kula hadlaya oo wax kuu macnaynaya wax ku baraya inaad dabeedna kalaamkiisa ku khushuucdo ilaahay baa wuxuu uhi waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan wacalaa rabbihim yatawakkaluun marka ilaahay aayadihiisa lagu dul akhriyo dadka mu'miniinta ah iimaan bay aayadahaasi u kordhiyaan waa nacasnimo nin weyn haddii qofku heestu ay kala qiimo badato ama heestii uu dhagaysto iyo gabaygii aayaadkii ilaahayna macno u samayn waayaan qalbigaasi waa daboolan yihi saa darteed baa ilaahay kuwaa isagoo ka dayrinaya wuxuu uhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha maxay qur-aanka u fiirfiiri waayeen mise qalbigii baa qufulan qalbiga qufulan ayuun baan qur-aanku saamaynin waxaa ka mid ah alikhaaru min dikri illaahi tacaala qur-aanku dikrigu ka mid yahay laakiin dikriga kale qur-aanka aan ahaynba inuu qofku badiyo tasbiixda xamdiga istikfaarta wacdiga dadka wanaagga la faro xumaantana loo diido alkelima ayiba salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam dikriga caamka ah anlaa yazaal lisaanu shaksi rabban min dikri illaah qofka inuu ku dadaalo carabkiisu inuu ka qoyanaado ilaahay xuskiisa markaasuu helayaa deganaanshihii iimaanka iyo iimaan kordha aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub qalbi xasilaya oo degaya laakiin markii hore aan sidaa ahayn buu qur-aanku ina barayaa qalbigaa miyirka qaba waa ka iimaankiisu kororsan yahay nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam mathalu ladii laa yadkuru mathalu ladii yadkuru rabbahu waladii laa yadkuru rabbah kamathali alxay aw mathalu alxayi waalmayt qofka ilaahay xusaya iyo qofka aan ilaahay xusayn waxay isaga dhigayn qof nool iyo qof dhintay oo kale qof dhintay iyo qof nool unbal adigu halkay isu taagan yihiin eeg idan markaa iimaankii waxay kordhiya dikrigaa ilaahay la badinayo ee rabbi subxaanahu wa tacaala ku ammaanay mu'miniinta munaafiqiintana ilaahay wuxu uhi walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila ilaahay in yarun bay xusaan waa inta cid ay ismaqashinayaan ama ay istusayaan abudardaa asxaabigaasi waxa uu leeyahay raggii dhadhamiye ah beeftii nabiga ay ka heleen calayhi salaatu wasalaam iimaankaa kobocsan likulli shayin jalaa waina jalaa'a alquluubi dikru llahi caza wajal shay waliba wuxuu leeyahay wax safeeya muraayadda waxbaa lagu safeeyaa alaabta waxbaa lagu safeeyaa dhalaaliya qalbiga waxa safeeya buu leeyahay dikriga ilaahay shaykhulislaam ibnu taymiya raximah llah waxa uu leeyahay addikru lilqalbi midlu lmaai lisamak fakayfa yakunu xaalu samaki idaa faaraqa almaa dikrigu marka qalbiga loo eego dikriga ilaahay xusayna subxaana wa tacaala kolka qalbigeenna loo eego wuxuu ka dhigan yahay tusaalaha ay leeyihiin biyaha iyo kalluunku
bal adigu waxaad ka warantaa buuhi kalluun biyo waaye intuu socon karaa ama noolaan karaaba idan markaa qalbi dikri waaye waa qolfoof dhintay ayuu noqonayaa qofkuna shayba shayga uu ka xun yahay buu jeclaanayaa waxba waxa uu ka wanaagsan yahayna wuu soo uraya ilaa waa qalbi dhintay waxaa ka mid ah waxyaabaha kobciya iimaanka ee kordhiya allah inoo sakhiro taqdiimu maa yuxibuhu allahu wayardaahu calaa hawa nafs taqdiimu maa yuxibuhu allahu warasuuluhu calaa hawa nafs in uu qofku horraysiiyo wuxuu ilaahay jecel yahay rasuulku jecel yahay ina faray waxay naftiisu jeceshahay uu ka horraysiiyo naftu waxbay ku faraysa ay diintu kuu diidayso marka inaad iska dayso ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان بالنبي الله صدح الرماد قفك لقى هلا معان كي إيمان كهلاي نعام بالنبي تلمامي عليه الصلاة والسلام الرماء سوامح إلهي رسولك أيو عيد والبكة جعل يوكا صاعدي عدو جعلانا إلهي درادي بقفك ريو جعلانا يا قال لماذا قلنا عيا سيدو دبك قلنا عيوكا له بل الرماها ايك يا ذو جعش يا ذو ما إلهي بذو جعش مسر رسولك مسر دين مسوح كلاك وقفلا وأظن وشاضر لي منيس waxaad ku warwarayseed u fikiraysaa taageerayseed u dhimanaysaa umad u jecesha ka fiirsa markaa kaasi wiye nooc wiyaha been ha isu sheegine waa inuu qofkii ka fikiraa ila ilaahayna wuu ogyahay subxaana wa tacaala idan markaa naftu waxay doonaysaynu dib dhigaynaa wuxuu ilaahay rasuulku doonayna waa horumarinaynaa saasuu iimaankii ku kordhayaa qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum wallahu gafuuru raxiim haddaa ilaahay jeceshihiin waxaad nebi maxamedoo ku tidhaahdaa dadka haddaa ilaahay jeceshihiin kuwii jacaylka ilaahay sheegtay ka been sheegaya la hadal aniga uni soo raacay ilaahay baa idin jeclaan dunuubtana uu idinka dhaaf waxyaabaha iimaanka kordhiya waxaa ka mid a xuduuru majaalis adikri waalxirsi calayha meelaha khayrka lagu hayo cilmiga diinta xuska ilaahay majaalistu waa laba mafrish qiiq iyo qurmuun ka duulayo iyo xan iyo been iyo balaayo iyo meel iftiin iyo udgoon leh oo ilaahay khayrkiisa lagu hayo iyo diinta meesha inaad ka agdhawaato saamayn bay kugu leedahay meelaha kale markaad u baxdana way dheeli tiraysa sida uu tilmaamaya xadiidkii xandala ee saxiix muslim ku sugnaa asxaabigaasi nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ninkii xandale la odhan jiray wuu munaafiqoobay isagaa isjeegaya macnaha xandale uu sheegaya waa isaga waan munaafiqoobay uu leeyahay maxaa dhacay dee markaanu kula joogno rasuul allah ee aadna waaniso waxaanu ka dhigannahay ama aanu u muuqannaa inaanu jannadii arkayno oonu ku hamiyeyno naartii arkayno oonu ka cararayno laakiin marka aanu kaa tagno ee aanu xaafadaha iyagii tagno caafasna alaswaaja waalawlaadi waaldaycaat ubadkii iyo ooridii iyo baylahdii baanu sidaa u dhex wareegaynaa markaasaanu nasiinaa kaiiran wax badanoo wixii noo sheegtay ah ayaanu iloobaynaa qiiradii iyo jibbadii nagu jirtayna way yaraanaysa wuu hambaliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam aragtidaasu isaga u adkeeyeyo wuxuu idhi haddii aad ku sugnaan lahaydeen sida aad tihiin marka ay ag fadhidaan oo jibbada iyo soo jeedka iyo jannada iyo naartaa la arkaya ah la saafaxatkum almalaa'ikatu calaa furushikum wa fii duruqikum malaa'igta ilaahay waa idinku salaami lahayd furaashkiina iyo waddada markaa maraysa malaggaa salaan idinla soo badheeri laha waayo caalamka sara ayaa ku biiri lahayde ee mar walba xusuusta ilaahay ay ku badanta marka rasuulku waxau ihi walaakin yaa xandala saaca wa saaca taa bani aadamku kari maayo heerkaa malaa'igta inuu ku hayo naftiise bal saacad iyo saacad dad saacad sidaasoo kale u qiirato ama jibbada u badiso saacadna reerkii siiso haysilaawinoo ilaahay xaqiisu yaa la lumin asxaabtu ridwaanullaahi calayhim way feejignaayeen way soo jeedeen waxay ogyiin in lagu maqan yahay oo uu soo markaynu inagu shaqo tegayna uu inoo soo shaqo tegaya mid shaydaan la ydhaa naftiina taageero u tahay oo u hiilinaysa markaasaa waxay odhan jireen iyagoo aqoon-yahankii iyo culimadiiya waxay odhan jireen sida mucaad ibnu jabal uu lahaa ijlis binaa nu'min saaca ninka alaswad ibnu hilaal la ydhaa saaxiibkiiyabuu ku lahaa balina fadhiisi aan saacad ilaahay rumayno ilaahay miyaanay rumaysteen waaba asxaabigii u yaqaanay xalaasha iyo xaaraanta ee waxa wey iimaan aan kororsanno oo iimaanku quudkiisii aan siinayo lagu waraabin lahaa sidoo kale majaalista khayrka haddii iimaanka laga kororsado dadka wanaagsan oo lala saaxiibana
oo laga ag dhowaadana iimaankii way kordhisaa. ilaahay baa wuxuu faray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii fuqarada iyo masaakiinta iyo addoommaha ahaa ee berigii hore rumeeyey ayaa la yidhi la fadhi oo magaca kuwa leh iyo kuwa maalqabeen kale ee munaafiqiinta iyo gaalada isugu jira ee ku faraya inaad kuwaa durkisa ha yeeli. wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashay yuriiduuna wajhahu walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati اddunyaa walaa tudic man agfalna qalbahu can dikrina waatabaca hawaahu wakaana amruhu furudaa. waa laba qoloo ilaahay sifaynaya. waa dad ilaahay caabudaya gelinka hor iyo gelinka dambe oo ilaahay daraaddii ula jeeda. kuwa ilaahay uu ammaanay kuwaa la fadhi baa layidhi oo wehesho waa sayidulkhalqi baa ilaahay ula hadlaya. markaasaa uu leeyahay kuwaasaad ka ag dhowaanaysa. lagu sheegay inay taal daran yihiin oo magac iyo muuqaal aanay lahayn. mar hadday ilaahay rumaysayn iyagaa u gobsan una laandheeraysana la fadhi. hana u tegin oo waxba indhahaaga ha u taagin kuwa qalbiga oo xidhmay ee bilicda adduunyada u waashay ee ilaahay dikrigiisa ka fogaaday ee hamadoodu ay hogaaminayso. idan markaa saaxiibka walaalayaal inaynu ka fiirsano weeye. saaxiibka qofka la idhaahdaa asaaxibu saaxib. saaxiibku wuu ku jiidanayaa. haddii uu wanaagsan yahayna wanaaguu kuu jiidi, hadduu xun yahayna xumaantu kuu jiidi. ha isdhagatirin. haddii ay dhacdo in aad isdhagatirto ciddaad doonto aad iska raacdo maalin kaleu qofkaasi uu ka murugoonaya. sida qur-aankuba ilaahay uu kaga warramay subxaana wa tacaala. tusaaluu nebi maxamed bixiyey calayhi salaatu wasalaam saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xun u sameeyey dadka oo ay wax ku fahmi karaanoo maxsuusa la arkayo. waxa uu ku shabahay aljaliisu saalix waljaliisu suu. qofka qof wanaagsan la fadhiisanaya iyo qofka qof xun la fadhiisanaya waxa uu tusaale uga dhigay nin cadar iyo udgoon iibinaya iyo nin shaqaynaya oo dhimbiila ka duulayaanoo buufimahaya. shaqadiisu ma xuma, laakiin waxa weeye hawl baa ka jirta. ha ku talagelin inaad halkaa ku nasato dhimbiilo ay ka duulayaan. marka saasoo kale ay ka dhigayiin buu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam. waxyaabaha iimaankii uu ku kordhayo waxaa ka mid a alikhaaru min alnawaafili waaacaat. u fiirsada inuu qofkii badiyo sunnayaasha. cibaado waliba waxay leedahay faral iyo sunne. in badanoo dadka ka mida waxay ku dadaalaan uun faralka. salaada faralku tukanaya, soomka faralka, waajibka kaas faradku ku egaynaya. waxaa cibaado walba la socda sunnihii u ahaa isbeerkee kabayay ee qurxinayay ee tayada u yeelayay ee haddii aakhira ay wax kaa dhinmaana ilaahay uu kugu kabayay. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiisulqudsi buu ilaahay ka warinaya. ayuu rabbi ka wariyo ilaahay waxau uhi wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibah faidaa axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bihi wabasarahu aladii yubsiru bih ilaa aakhiri alxadiid. qofku mar kastuu sunnaha ku dadaalo wuu igu soo dhowaadaa buu ilahay igu soo dhowaadaa ilaa aan jeclaado. markaad jeclaadee jacaylka ilaahay addoonku helana waa darajadaynu doonaynaybe ilaahay wuxuu yihi waxaa noqonaya araggiisa, maqalkiisa, socodkiisa, waxqabadkiisa ilaahay baa ilaalinaya. faallaahu khayrun xaafidan. cid wax ilaalisana ilaahay baa ugu wanaagsan subxaana wa tacaala. waxyaabaha ilaahay uu iimaanka ku kordhiya waxaa ka mid a su'aalu llahi tacaala ziyaadata aliimaani wa tajdiidih. inaynu ilaahay barayno oo baryadeenaynu rabbi baryayne badan aynu ku darno ilaahay iimaanka, ilaahu iimaanka, ilaahu iimaanka noo ilaali oo noo kobci oo noo kori. nabigaa ina faray calayhi salaatu wasalaam xadiidkii xasanka ahaa. waxau nebigu uhi ina aliimaana la yakhlaqu fii jawfi axadikum kamaa yakhlaqu thawb. iimaanku qalbigiinna ku jiraa wuxuu u baaliyoobaa oo u duugoobaa sida maradu u duugowdoo kale. mara haddii muddo la gashanaadoo la maydho duug bay noqotaa iyahum. fasalu llaha tacaala an yujadida aliimaana fii quluubikum. ilaahay barya inuu iimaanka qalbigiinna ku cusboonaysiiyo buu nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam. idan markaa intaasoo daliilo kolkaynu akhrino waxyaabaha laxjeclada koobaad aynu u hayno waxaa ka mid a amaanat اllahi fii quluubi اlcibaad. aliimaanu biاllahi subxaanah. ammaanada weyne qalbigeenna taalla iimaanka. kaasaa mustaqbalkaaga adduunyo iyo aakhiraba xadidayo jahaynaya kolba caynkaa tahay. haddii kaasi qofka ka lumo halkan uu iimaan xumo iimaan la-aan kala dhaadhacana looma rajaynayo inuu janno galo, inuu naar galo mooyaane. idan naarna ma kari karna. xataa hadduu qofka
إلهي النار صو مريم ما أدراك من النار محاد كقرنا النار تمحيت من نجا متشرك إنه مبكر كرو إذا مركا وشيء إنه اللي حج على ذا كوبات سينا إنه وإنه دراسين إنه وهذين كي مركا إنه قارن هاي إنه ديبو ميسامين إنه كفدية ميسان كسارة إنه توش كوي فينا إنه وإنه نقضي إيمان كين هل كإنه حسابات كلا كوب حسن هاي يا وحى كلا فرها بدنا إنه جوحية هل كاسين وشي إنه وجدين إن الله إنه وافعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم